وحوصل واتان داوضي الله وروحي نقصوا قاري هبين كان عاوها دلك أيها الدولونها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قدامنا قدر كرون وركي إنها هبين كان عاوها قاعد تلفزيون كان عاوها كمد شمدحات كيلا بيتواناد دلك كجرا سوق كوميسا أيامان تلقسوا قبقبيه عاصمة نيروبي دلك كينيا حولها شركة سوحة كغيب غاتين مدحونها جمهورية مدن إسماعيل عمر أجيلي. golaha baarlamaanka ee dalka ayaa maanta yeeshay fadhi loo dhanyahay oo ay ku darsadeen mashaariic xeer oo ajandaha ugu jiray fadhi qaran oo ku saabsan dhimista halista abaaraha ayaa maanta lagu qabtay guriga ummadda ee caasimadda Djibouti xagga wararka caalamka ciidamada Yahuudda ayaa duqeyn u geystay degmada Jabaliya iyo Jidda Gaza ee Falastiiniyiinta intaasi waa warkii oo kooban haatan isagii oo dhan warkii dalka shirmadaxeedkii 12aad ee dalalka ku buhoobay suuqa Afrikada Bariga Afrikada Koonfureed ee loo yaqaan Komesa ayaa maanta laga soo gabagabeeyay caasimadda Nairobi ee dalka Kenya hawlaha shirkani oo socday 2 maalmood ayaa madaxda dalalka ku jira suuqa Komesa waxa ay gaareen talaabo ahmiyad leh taasi oo ah sidii dalalka ku jira Komesa ay uga midoobi lahaayeen cashuurta badeecadaha u kala goosha dalalka xubinta ka wadamada Komesa madaxweynaha wadanka Kenya Moi Kibaki oo hadda la wareegay gudoomiyenimada wareegta ee dalalka Komesa oo kala wareegay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu mahadnaqay madaxweyne Moi Kibaki hogaamiyaasha dhigiisa ee ka soo qayb qaatay shirkaas lagu qabtay caasimadda Nairobi ee dalka Kenya waxa kale oo mahadnaqay madaxdaasi sida ay markaas u gaareen heshiis ku saabsan mideynta cashuurta taasi oo dhici doonta ma bilaami doonta bisha December ee sanadka soo socda 2008 shirkaasi waxa ka qayb qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele arrimaha shirkaasi lagu falanqeeyay waxa kale oo kamid ahayd xaalka gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan xaalka dalka Soomaaliya iyo xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Eritrea golaha baarlamaanka ee dalka ayaa maanta yeeshay fadhi loo dhanyahay kaasi oo daadinayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Djibouti Idris Arnaoud Ali waxaana fadhigaasi ajandaha ugu jiray mashaariic xeer oo kala duwan mashaariicdaasi waxaa kamid ahayd mashruuc xeer oo ku saabsan ansixinta hantida maaliyadeed ee hay'adda badbaadada bulshada ee OPS ee ku shaqeysay sanadkii 2005 mashruuc xeer oo ku saabsan ansixinta hantida maaliyadeed ee isla hay'adda OPS ay ku hawlgashay 2004 mashruuc xeer oo xisaab xir lagu sameeyo hantida maaliyadeed ee tikada madaxa banaan ee caalamiga Djibouti ay ku shaqeysay 2005 mashruuc xeer oo xisaab xir lagu sameeyo hantida maaliyadeed ee xafiiska biyaha ee wanaagga ku shaqeeyay sanadkii 2005 iyo mashruuc xeer oo xisaab xir lagu sameeyo hantida maaliyadeed ee madbacadda qaranka ee Djibouti ay ku shaqeysay sanadkii 2004 iyo ugu dambeyn mashruuc xeer oo ku saabsan ansixinta hantida maaliyadeed ee Posta Djibouti ay ku shaqeysay sanadkii 2005 darsaadda mashaariicdaasi xeer ayaa si wanaagsan u dhacay taasi oo kadibna la ansixiyay mashaariicdaasi xeer ee maanta golaha baarlamaanka hooyaalay رئيس الوزراء دالك مدلل دليتا محمد دليتا oo isagu ka hadlay maanta fadhigaasi golaha baarlamaanka ayaa waxa uu ka warramay laba qodob oo kala duwan waxaana uu yiri رئيس الوزراء جمهورية Djibouti دليتا محمد دليتا hadalkii maanta ka jeediyay fadhigii balaadna isku yimaadeen xubnaha golaha xukuumadda waxa uu ku bilaabay laba qodob ayaan uga soo jeedinayaa ayuu yiri halkan kuwaas oo kala ah sida lacagihii ayamaalka ee shaqaalaha dhabada xadiidka CDA taasoo ahayd dhibaatadii lacagihii cotisation-ga oo shirkadda CDA ay u shubin hay'adda OPS sidaas ayaa keentay ayuu yiri in shaqaalihii hawlgabeenka noqday loo waayo lacagihii pension-ga ee retraite-ka dawladda Djibouti ayaa isku dayday in mas'uuliyadooda ay qaadato oo dusha markaasi ay ku qaadato 42 qof oo shaqaalaha shirkaddaasi
sidaad ogtihiin ayaa yiri waxa shirkadda CD ay ka dhaxaysaa laba dawladood oo Djibouti iyo Ethiopia Dineeta Maxamed Dineeta ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti waxa maanta kaga hadlay fadhigaasi qodobka labaad waxay tahay dhibaatooyinka xagga biyaha oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Margeele uu kala xidhiidhay agaasimaha cusub ee hay'adda biyaha ee ONED isagoo ka dalbay inuu xal u helo dhibaatada biyaha dibna loo soo casho haamihii biyaha lagu kaydinayo ee ku kala yaala sida Plateau du Serpent xaafadda lixaad iyo xaafadeenta Arxiiba dabadeeda kuwaasoo biyaha markaasi aan lagu shubin muddo waad ogtihiin ayaa yiri in maalmahan dambe ay biyalaan ka taagan tahay xaafado ku yaala xaafadeenta Balbala biyuhuna gaafsi ay noqdeen taasoo kolba xaafadda loo dugo si xoogaa biyo ay u helaan agaasimaha cusub ee hay'adda biyaha ONED waad la socoteen kolkii xalay uu ka hadlay telefishinka Djibouti waxa micno ka bixiyay dhibaatooyinka xagga biyaha taasoo ay ugu wacan tahay dadka ka soo mid ahaa shaqaalihii hay'adda ONED oo iyagu siday doonaanba u adeegsanaya qasaabka biyaha sidii haddaba looga bixi lahaa dhibaatooyinka biyo la'aanta waxa dawladdu ay aqoonsatay ayaa yiri in la buuxiyo haamihii beedaha ee ku keenay xaafadaha magaalada Djibouti sida beeda ku taala Plateau beeda xaafadda lixaad iyo haanta ku taala Arxiiba dabadeeda haddii kuwaasi lagu kaydiyo biyaha waxa laga kaaftoomi doonaa ayaa yiri cadilaado iyo koronto leey saamaysa ceelasha biyaha ilaa inta caadiga ay ku soo noqon doonaan Dineeta Maxamed Dineeta hadalkiisa sii watay xaaladda hay'adda biyaha ONED waxa dhawaanta gacanta ku qaban doonta ayaa yiri ururka midowga Yurub oo maaliyad xoog leh gelin doonta gelin doona mashaariic kala duwan oo xagga maaliyadda sanadka soo socda ayaa tallaabooyinkaasi laga kaaftoomi doonaa رئيس وزراء جمهورية دينيتا محمد دينيتا وحصل جرمي قربضاسي وري محمود بربوخ afadhi qaran oo ku saabsan xoojinta sidii loo dhimi lahaa halista abaaraha ayaa maanta ka furmay guriga ummadda ee caasimadda Djibouti hawlaha fadhigani oo socon doona laba maalmood waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti furitaankii fadhigani waxaa gudoominayay wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobolada Yaasiin Cilmi Buux iyadoo ay u joogeen wakiilo ka socda xoghaynta caalamiga ee kahortagga masiibooyinka ee qaramada midoobay wakiilo ka socda hay'adaha caalamiga xubnaha guddiga farsamo iyo guddiga heerka gobol ee maaraynta halista masiibooyinka hadal gaaban ee ka akhrisay furitaankii fadhigani mas'uulka barnaamijka heerka gobol ee qaybta Afrika ayaa waxay tilmaamtay in kadib abaarihii Djibouti laga dareemay sanadkii hore ay qaramada midoobay xafiiska Afrika uu si aad ugu bogay in uu taageero xukuumadda Djibouti waxa kaloo ka hadlay fadhigaasi wasiirka arrimaha gudaha waxaana uu yiri tallaabada cusub waxay ka mid tahay ayaa yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo ismaamulka gobolada mudan iyo Yaasiin Buux hindisaha qaran ee horumarka bulshada ee dalka uu ka dhaqaajiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Margeele bilowgii sanadkan 2007 sugidda dhinaca la dagaalanka nabad guurka iyo maareynta masiibooyinka dabiiciga waxay buuxinayaan meel wanaagsan iyo wasiirku oo difaaca ka qaadan doona kaalinta dhinaca dhibaatooyinka ka yimaada xagga abaaraha waxaan sugeynaa iyo wasiirku natiijooyinka ka soo baxi doona baaqi ay jeedisay dhawaanta wasiirka qaabilsan iskaashiga caalamiga ee ku saabsan in beesha caalamku ay dalka la soo gaadho si loogu taakuleeyo dadweynaha xoolo dhaqatada miyiga ee ku dhaqan dalkan Jamhuuriyadda Djibouti ee abaaruhu ay saameeyeen wasiirka arrimaha gudaha mudan Yaasiin Buux hadalkiisa sii wata waxaa loo baahan yahay in isbedel lagu sameeyo hindisayaasha kala duwan ee lagu dhinayo masiibooyinka abaaraha si loo yeesho istaraatiijiyad midaysan iyo xidhiidhyo kala duwan oo qayb ka qaata dadweynaha ama hawlaha lagu dhigmaayo hindisaha ay wataan abaaraha iyo dhibaatooyinka xaalufinaya baaqa dalkan Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo la tixraacayo istaraatiijiyada ku saabsan ayaa yiri siyaasadda horumarka qaran si loo fuliyo dhaqdhaqaaqyada horumarka samafalka aadamaha iyo sugidda dhinaca aqoonsi tababar ah oo ku saabsan xoojinta deegaanka ayaa maanta ka furmay isaguna qolka fadhiyada ee wasaaradda hoyga iyo deegaanka ee Djibouti munaasabadaasi waxaa gudoomiyay agaasimaha arrimaha deegaanka mudan Diini Cabdalla waxa uu joogay wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee Biniid
ee dalkan jamhuuriyadda Jabuuti oo isagu mid soo wakiishay hawlaha fadhigaasi waxa aqoontooda ka bixinaya aqoonyahanno caalamiya iyagoo sii wada oo sii wadi doona fadhigaasi ilaa maalinta Sabtida ee lagu soo eedan waxa aqoon kororsigani ka soo qayb qaatay shaqaalaha ama howlwadannada xafiisyada farsamo ee maamulka dawladda wakiilada iskaashatooyinka iyo kuwa bulshooyinka ay leeyihiin ujeedada kulankani ayaa ah mid lagu soo bandhigayo wixii hawlo ah ee la fuliyo ee ku saabsan daryeelka arrimaha deegaanka agaasimaha arrimaha deegaanka Mudane Diini Cabdalla waxa halkaasi uu ka sheegay in qof walba oo aqoon kororsigani soo ka soo qayb qaatay inuu ka faa'iideysto waxa uu sheegay in wasiirka madaxa uu ka yahay waaxdani waxa uu meel dhigay yawri guddi loo xisaaray mashruuca lagu qiimeynayo baaxadda lagu xoojinayo maareynta deegaanka tayawanaajinta mashruuca waaxda horumarka deegaanka oo qorsheynta dhaqdhaqaaqyada mashruucaasi la socodka qorshaha hawleed xagga farsamo ujeedada fadhigani maanta aan isku imanay yawri waxa ay tahay sidii kor loogu sii qaadi lahaa tayada xagga deegaanka ee dalkan jamhuuriyadda Jabuuti oo xukuumaddu ay tallaabooyin kala duwan ay ka fulisay sidii markaasi loo kobcin lahaa loona xoojin lahaa baaxadda xagga deegaanka wakiilka hay'adda BNID ee jamhuuriyadda Jabuuti oo qaabilsan xagga horumarka ayaa isagu micno faahfaahsan ka bixiyay in jamhuuriyadda Jabuuti ay ku dadaashay sidii ay ugu badin lahayd deegaankeega oo maanta sax wanaagsan ay ka muuqata yawri dadaalkaasi waxaan ku habalyeynaa dadkii isku hawlay ee ka soo shaqeeyay xoojinta deegaanka deegaanku waxa uu yahay mid qaali ah oo qayb ka qaata cimilada hawada oo tayadeedu markaasi ay wanaagsanaato caasimadda Jabuuti waxa ka socda maalmaha dambe hawlo balaaran oo lagu xirayo goobaha ganacsiga ee iyagu aan bixin sharciga cashuurta hawshani waxa laga wadaa goobaha ganacsiga ee caasimadda Jabuuti waxaana tallaabadani hormood ka agaasimi hoosaadka soo ururinta oo la kaashaday xafiiska ilaalada iyo la socodka oo ay taageerayaan ciidamada jandarmeriga ee Jabuuti waxaana ay xireen goobo badan oo iyagu aan bixin sharciga cashuurta waqtigii loo qabtay haddaba hawshaasi waxaan ka wareysanay Maxamed Cilmi oo mas'uul ka xafiiska kormeerka iyo la socodka iyo Xuseen Yuusuf oo ka tirsan agaasimi hoosaadka soo ururinta saaka nako la bilownay macal jandarmada ragga ku farmaanka nako caawinayna oo gacan siinayna ilaa 280 qof way noqonayaan dadka ampuga laga doonayo imika shaqada maday weynka arkay inuu soo socotaba macal jandarmaka shaqada subax iyo galab la waxayo batanka noqdama qof weyn abtagteed janvier uu yimaado oo bixiyo dalka waxay iska barteen baahed beereedo xana fulxana loo waxay sida magaalada Rabadaankii oo kale iyo dadka ninka bacda oo kale laga doonayay dad waa Rabadaan de September waxa lagu koobnaanayso ama October bay noqotaa donc laba bilood ee kan jiidahay in kan furtay waxaan bado kuleemanay avec direction jiidka depuis fusion dhacay labadaba la isku geeyay ee yalana directorna waxa la yiri dadku batankooda hospital meeda inta galin in dukaan walba batankiisa karta fiishay uu lahaado hawlaha saaga ka qaban lahaay iyo shalay ayday aan busul benefici à titre de l'année 2006 2004 waa dumarkan maanta aan sudasire digay iska daa macaasha badaadkii waa dirqiga laga qaadayaaba saa walba waxa rabtaa in suuqa soo laalacdo ay waxay bixin bacashar dalka ka bixin wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah ciidanka jandarmeriga ee dalka ee qaybta Dameerjoog ayaa gacanta ku dhigay tiro badan oo ah aqoonta diinka iyo saangada oo laga keenay dalkan dariska nahay hawlannada ciidanka jandarmeriga ayaa hawlo ilala ah oo ay wadeen waxa ay gacanta ku dhigeen baabuur sidii aqoonta diinka iyo saangada oo la doonayay in la iibiyo waxaana ay gacanta ku dhigeen hawshaasi iyaga oo la kaashaday qaybo kala duwan waxaana ka wareysanay arrinkaasi Liif Maxamed Awaale anaka ciidanka brigade jandarmeriga Dameerjoog ayaa qabanay gaari ka yimid xagga Somaliland oo Lankurzara oo lagu siday alaabta darkaysiin oo ah qoloftii diinka badal iyo saango oo wadankeena mamnuuc ka ah in laga iibiyo commerce laga sameeyo kolka yaan qabanay oo keenay halkan kolkaana in ka sharciga la tiigsan dadkii waxa sidii
dadka reer Jabuuti waxaan uga digayaa inay diib dambe waxa ay u falin ay mamnuuc ka tahay waddanka inay ogaadaan lidda ya breenihid gaamsiisana geestiisa agaasimaha deegaanka Diin Cabdallah waxa uu sheegay ama uu xusay in ay mamnuuc ka tahay ganacsiga qolofta diinka iyo saangada Jabuuti taasi oo xawayaankani ay ka mid yihiin sida ku dhigan heshiiska Washington oo dalkeenu uu saxiixay waxaana ka horeeyay Leed Maxamed Cawaale oo isagoo ah madaxa ciidanka jandarmeriga ee dalka ee qaybta Damiirtug dhinaca wararka caalamka gaar ahaan dalka Lebanon kumanaan qaxooti Falastiiniyiin ah ayaa wali ka farxanaya goobaha dagaalku ka socotanaya hadii dagaalkaas oo dhaxeynaya ciidamada Lebanon iyo kooxda lagu magacaabo Fatah al-Islam kumanaan dadka qaxootiga Falastiiniinta ayaa iyagu ka sii qaxaya dagaalada dib uga soo cusboonaaday waqooyiga dalka Lebanon dadkaasi oo ka sii baxaya degmada Al-Bareed lagu magacaabo iyagoo qaarkood ku socda qaarkoodna ay adeegsanayaan baabuurta gaadiidka si ay uga badbaadaan dagaalada u dhaxeynaya ciidamada dalka Lebanon iyo dagaalyahanada Fatah al-Islam lagu magacaabo oo iyagu diidan in ay soo dhiibaan hay'adda samafala ayaa dadkaasi u qayminaya cunno iyo macluul kale oo ay quutaan si ay u sii adeegsanaan jidka ay markaasi ay ku jiraan waxaan loo ogsoon yahay dadka iyagu ka sii baxay goobihii ay hore u deganayeen inta ahaan ay dhan 10,000 oo qof dadkan iyo Falastiiniinta waxay ahaayeen dad qaxootiya oo ku dhaqan xerada Al-Bareed lagu magacaabo waxay qabsadeen oo markaasi ay ku dhaqaaqeen sidii nafahooga ay u badbaadin lahaayeen iyagoo cagaha wax ka dayaya si ay uga badbaadaan rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac ee ciidamada daacadda oo dawladda dalka Lebanon iyo kooxaha jabhadda ee islaamka ee lagu magacaabo Nasr al-Islam oo iyagu markaasi dagaalo joogto ah ka wada dhinaca waqooyiga ee dalka Lebanon masuulkaasi waxa uu cadeeyay dagaaladaasi ay noqon doonaan kuwo laga guuleysto kooxdaasi lagu magacaabo al-Fatah al-Islam oo iyagu dagaalo cusub dib uga soo bilaabay dhinaca waqooyiga ee dalka Lebanon ciidamada daacadda oo dawladda waddankaasi ayaa lagu xoojiyay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada waddankaasi ku yaala ee dhinaca waqooyiga wararka kale ee caalamka waxa kamid ah qarax ayaa ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ciidamada Yahuudda ayaa duqeyn xagga cirka u geystay degmada Jabaliya iyo Jida Gaza wararkaas isku duuban balalkan haynu faaleyno au moins 7 morts et une centaine de dalka Turkiga 7 qof ayaa ku dhintay boqolaal kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Ankara booliska Turkiga ayaa gacanta ku dhigay 8 qof oo la xiriirinayo mas'uuliyadda qaraxaasi sidoo kale waxa la wada hawlo lagu cadeynayo meydka ninka naftuuraha ee geystay qaraxaasi laakiin se kooxda lagu magacaabo PKK ayaa sheegtay in haba yaraatee iyagu wax mas'uuliyad ku lahayn qaraxaasi ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga dalka Afghanistan askari kamida booliska reer Afghanistan ayaa lagu dilay maanta weerar isbiimeyn ah oo mas'uuliyadiisa ay qirteen kooxda Taliban ee lidiga kuwa xukuumadda waddankaasi Afghanistan weerarkaasi waxa kale la sheegay inay ku dhaawacmeen 4 qof oo rayid ah iyo 2 kamida booliska dalkaasi Afghanistan diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Yahuudda ayaa duqeyn u geystay habeenkii xalay degmada Jabaliya iyo Jida Gaza guud ahaan 7 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay duqeynta ciidamada Yahuudda laakiinse tan iyo 16 bishan May 8 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay duqeynta ay ku hayaan ciidamada waddanka Yahuudda ama Israa'iil dhulka Falastiiniyiinta dhinaca dalka Serbia labada nin ee loo haysto inay ka dambeeyeen dilkii ra'iisul wasaarihii hore ee Serbia Zoran Djindjic ayaa maanta lagu xukumay 40 sano oo xadhiga labada nin ayaa kala ah Milorad Juremek oo ah maskaxdii ka dambeysay dilka ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Serbia iyo midka isagu markaasi loo haysto in uu dilkaasi ka dambeeyay waxaana lagu xukumay labadaas nin 40 sano oo xadhiga qodobkaasi ugu dambeeyay wadayaal war wixii naga soo gaadhay habeenkan caawa dalka iyo waxay kala qayb qaatay warkan habeenkan caawa Maxamuud Barrabo waxa kala socotay telefishinka Djibouti satellite-ka iyo internet-ka waxaan iga tagayaa dhamaantiinba nabadgelyo iyo amaan Allah